munaasabad si heer sare ah loo soo agaasimay oo ay ku qalin jabinayeen cutubyo ka mid ah ciidanka difaaca qaranka Itoobiya ayaa lagu qabtay xarunta tababarada ciidanka difaaca qaranka qaybta bariga ee magaalada Jigjiga. xafladan oo ay ka soo qayb galeen saraakiisha ciidanka difaaca qaranka Itoobiya qaybta bariga, komishinka booliska dowladdeegaanka Soomaalida Sarreeyo Guud Cabdi Cali Siyaad, hoggaan ku-xigeenka nabadgelyada dowladdeegaanka Soomaalida Mudane Idriis Jibriil Roble, hoggaamin ka socotay dowladdeegaanka Hirida, ciidankii qalin jabinayay iyo marti sharaf kale. ciidankan oo muddo 2 bilood baranayay mabaadi'da asaasiga ah ee ciidanka, dastuurka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Federaalka dalkan Itoobiya, xeerarka ciidanka, sugidda amniga iyo qaybaha jimicsiga iyo jirdhiska. ciidankan qalin jabinaya ayaa waxa ay soo bandhigeen dhoolatus iyo faltusmeedyo la xidhiidhay casharadii muddada 2 bilood ahayd ee ku xariisnaan xeradaasi ay qaateen, iyadoo dhanka kale qaybaha fanka iyo sugaanta ee ciidanka difaaca qaranka Itoobiya qaybta bari halkaasi heeso kala duwan oo ku saabsan ciidanka iyo difaaca dalka qarannimada halkaasi ay ku soo bandhigayeen. Major General Fiqaadu Sagaye, taliye ku-xigeenka ciidanka difaaca qaranka Itoobiya qaybta bari, oo ka hadlay xafladdaasi qalin jabinta ayaa hambaliyo bogaadin u jeediyey ciidankii muddada soo qaadanaya casharadan la xidhiidhay ciidanka, waxa uuna ugu baaqay in casharadan ay halkan ku barteen waajibaadkooda shaqo si wanaagsan u gutaan si ay kaalintooda uga qaataan sii xoojinta amniga iyo qarannimada dalkan Itoobiya. waxa uuna dhanka kale xusay in Itoobiya ka go'an tahay had iyo jeer inay sii laba jibaarto tirada iyo tayada cududa ciidan, taas oo uu yidhi lagama maarmaan ah in had iyo jeer howlahaasi ay noqdaan kuwa joogta ah. የእናንተን የዛሬ ምረቃ ልዩ የሚያደርገው የመጀመሪያው የሀገራችን እድገት ትልቅ ምዕራፍ የሆነው የመላው ኢትዮጵያዊ አሻራ ያረፈበት የታላቁ ህዳሴ ግድባችን ግንባታ በሰላም የተጠናቀቀበት ማግስት መሆኑ xafladiinan qalin jabintu maanta waxay ku soo beegantay xilli dalka Itoobiya uu ku guda jiro u dabaaldegga xafladda dhamaystirka mashruuca weyn ee dib-u-curashada Itoobiya, kaas oo ah raadreebka cagaaran ee shucuubta iyo ummadaha reer Itoobiya ay si wada jir ah ku guuleysteen in ay si nabadgelyo ah u dhammaystiraan mashruucaasi. taasi waxa ay laba jibaaraysaa xafladda farxadda qalin jabintiina. ሁለተኛው ሰራዊታችን በአደረጃጀት በአስተሳሰብ በትጥቅ በቴክኖሎጂ ከጊዜ ወደ ጊዜ እየዘመነ የመጣበትን ሀገራዊ ተልዕኮ በላቀ ሁኔታ መውጣት የሚያስችል ከፍተኛ አቅም የገነባበት ወቅት ሲሆን talabaad qalin jabintiinu waxa ay ku soo beegantay xilli ciidanka qaranka dalka Itoobiya dib u habeyn ballaaran lagu sameeyay dhanka qaab dhismeedka, hubka, teknoolojiyadda, aragtida, awoodda afneed ee si guud ee ciidanka, taas oo saamaxaysa in marxaladda ciidanku maanta ku sugan yahay ay tahay mid lagu kalsoon yahay in uu si sharaf leh u difaaco qarannimada iyo midnimada dalkan Itoobiya. በርካታ ፈታኝ ግዳጆችን በድል እየቋጨ ከግማሽ ምዕተ ዓመት በላይ ልምድ ያካበተ tasaddexaad qalin jabintiinu waxay ku soo beegantay xilli ciidanka difaaca qaranka Itoobiya ay soo wajaheen caqabado isxigxigay kuwaas oo guulo la taaban karo ka soo hooyay, iyo in aad idinku qayb ka noqotaan ciidanka difaaca qaranka Itoobiya qaybta bari oo astaan u ah geesinimada iyo halyeynimada ciidamada Itoobiya, ciidankaas oo soo jiray in ka badan nus qarni. intii ay socotay munaasabadaasi waxaa la guddoonsiiyey shahaado sharaf ah hay'adaha ammaanka deegaanka Soomaalida kaalintii ay ku lahaayeen qalin jabinta ciidankan muddada qaadanayay tababarkan ciidan ee muddada uga socday xarunta tababarka ciidanka difaaca qaranka ee bariga Itoobiya.